guur waxaa ugu naajaxsan midka ninka uu aamuso. haddaad aragtaan dad muddo isqaba haddii mikrofoonada aan u dhiibna akhyaarta odayaasha meesha joogo ee 30 sano 40 sano guriga lahaa nin walba wuxuu ku badbaaday ma hadli jirin. haddaad hadashid oo wax walbaba kelmad aad ku jawaabid oo jawaab ay ka soo horeyso guurkaas ma socdo. walaalika waxa ugu wanaagsan ee dumarka lagu la dhaqmo waa la aamusa waa la dhageystaa un kaliya. dhageysiga tirada badan adna stresska iska dajinaysa iyadoo biidin Allah subhanahu wa ta'ala kalimadeeda sheeganaysa halka kaliya marka lagu wadi karo waxay dhahan anjax zawaaj ee binaadamka dhexmara waa ma yulaazimuhu zawju samta intu aamusan yahay buu gurigaasu uu dhaqaaqi kara biidin Allah subhanahu wa ta'ala. marka guur laga hadlo badana anu waxaan dareemaa odayaasha un baa dhaqdhaqaaqa kursigu la ruxruxdaa laakiin kelimadu dadkoo dhan bay u dhacaysaa iyo noocan ma way dareemi karaan. guur wuxuu rabaa marka dhowr shardi hadii la helo. shardiga koowaad ninka ragga ah hadii uu guursado waa inuusan gabadha ku mashquulin. labo hadduu guursado guriga waa inuusan noqon guri rucbi ama tarar uu ka jiro maantana hanjabaado ay jirto. saddex guriga waswaaskana waa in laga daayo oo shuqulada Yurub loogu yimid. shan waa inuusan qofka isagu nafsadiisa uu ka fakerin ee lamaanaha uu la joogo uu ka fakaro. talixaad mas'uuliyad inuusan ka baxsan. lixda qodob waxay ku salaysan yihiin age bay ku salaysan yihiin da'da dadka meesha fadhiya. marka badana waxa la heli jiray dhalinyarada uu kaliya laakiin qof kasta da'da 20 jir ilaa 70 jir fariintan baan gudbinayaa. waxay tiri gabadhii oo dardaarmaysa waxay tiri hooyo haddii aad guursanaysid 20 jir ogow aduu kugu mashquulaya guriga kama baxay aduu kama ka dhamaanayo. صدن هداد جوستين وهنجبات والله ونكفرية والله داس دقش ونكفرية والله صدق عن كفرية أفرت أن ما دام جورك وكذا هو وسواس بديه يلا صو هذا الشيء هل كتمت أنت كصاد هذا ما كان كيكو شو كان سجريبا أفرت أن هداد جوس كنت نديرنا يسوي مشكلة علاش نبوح بيتر جرام كيس هذوه هلا وأكو دين يا بيتر كايسجا لحدا نجير مركز لجارنا مرة بعمامة بوسيتاي ضد بان كلا دعينا يا قربان كجرا وكذا موين الجوري وشقاكم له تضرات المركو جارنا عدي كدمال اللي ترى يترماشن حوم يلا مركو قف البوا طبعا أيد بوجرة أيش كار إلهي سبحانه وتعالى بركة لكن مسؤولية ده يلا مسؤولية أهمية ده له نبي كان وناشج صلى الله عليه وسلم وبالله توفيق.